Soomaaliya way taagantahay wallahi habar way dhaaftay habar way dhaaftay iya habar habiyay habar isbajartay habar habiyay habar hartiyay habar jaclay habar waa dhaaftay sheekada wallahi billahi gawsa in loo alasha la iska rifay taaragtay yay taagantahay waxay taagantahay yaa Soomaaliya taagantahay iya ha gaariga maxaa la yiri bal annaga bal arka waxaan haysta waqti baanu soo qaadanay gaaraanu soo qaadanay kanaanu soo xanaleeyay ba arkartay walaalka ba arkartay hooyada ba arkartay dadkaaga maxay sababtu maxay gurigaan xuk oo bahalka ah maxay tahay yaa mas'uulka ah yaa ka dambeeya yaa amarka bixiyay wax amarka bixiyay baan rabnaa yaa mas'uulka yaa mas'uulka laakiin hadda aniga gurigii baan walaalayaal u taaganahay bal ila arka hadda booliis baan wacay waxa weeye waxa la ii diiday walaalkii inaan arko warqad sharci ah oo la igu yiraahdo ma arki kartidna ma haysa lacag baa bixinahay baa la igu yiri lacag bixi baa lagu dadka magaafaan nahay lacag baa walaalka ku arkaysaa lawyer lacag badan bixi baa la igu leeyahay hadda waa karaa lawyer lacag badan bixi war aniga lawyerka lacagta badan intaan ka keenahaya maxaa aniga jirka walaalkii baa la iga iibinaya markaan anigu 5 sano qaxootiga ku biilahayay markaan anigu 5 sano walaalayaal qaxootiga ku biilahayay markaan ku biilahayay miyaa la dhahay marka aniga future-kayga waxa ugu sheegahayay maxaa la dhahay hadda maanta in la yiraahdo walaalka ayo cad xanuunsanaya ma arkay 4 years oo kaliya la ayo oo kaliya loo gelin waayo oo dad aan kaliya u gelinaynin oo transparent kaliya u sameynaynin oo dhakhtar geynaynin oo caawinaynin ay hooyaday dhahayaan yaa gabadhaada ku iman yaa gabadhaada magacay bedelay gabadhaada saan weeye gabadhaada magacay bedelatay gabadhaada kan weeye gabadhaada waxa been ay sheegahayaan oo turfatoore ay hadda walaalayaal booliiskan wacay buildingkan hortaagana buildingkan waa buildingkan dheer saad u aragtaanba buildingkan siir baa la yiraahdaa buildingkan waa buildingka tuugada ugu waaweyn ay joogto oo gaangistrinta ah nin Umar Jamaal la yiraahdo tuug oo gaangistra habarta inta 3 kun ka cunay ayuu hadda halkaan buu igu taraad gareynaya halkaan buu yimid xabad buu sita wuxuu leeyahay hadda waxa weeye barta waxa qash waa aniga waxa weeye sharciga ku socdaay anigu sharciga ku socdaay sharciga waxa lagu socdaa walaalkay aniga qof ii diida ma jiro qof inaan arko ii diido sharciga waraaq inta iga hor keenay waxaan kuugu diiday walaalka ma arkaysid bal waxa ariga la igu diidayo oo la leeyahay walaalka ma arki kartid oo hooyada amarka loo siinay la hooyada wiilkeed ma iman karto ma arki kartid oo walaasha ma arki kartid walaashayna nin xun oo tuug ah ba asagana miyadana meel ku xartay oo ayadana wax alla waxay ku nooshay war uma haayo mar horena ilmo badan baa laga qaatay 4 anug baa tuuganimo xoog looga qaatay iyo annaga reer hebel iyo annaga awood leh sharci wadanka ma ka jira is there is a law in this country why I won't able to see my brother in this building there is no law here why not if there is no law I have called the police to see my brother as today I want to see my brother. There is no any paper or any court paper saying that you cannot see your brother. Is it because of this Jamal Omar guy, he acting an attorney, he's a big criminal, everybody know him. He acting say, hey, my mother, he told her, my mother, don't let your daughter to come to your son. Don't let your daughter to come to your husband. She may see something wrong. She may see some failure. This is nobody take responsibility of. Nobody taking me to the hospital. Nobody taking me to the well feeding. Nobody taking. I am here. You remember you people before I recorded. I'm hired at walaalkay. Aniga ma arkin 4 months, 3 months. I don't even know what's going on. I don't know how he look. I don't know what's happening. Anigana aabahay waraaqu iga tagay long paper iga tagay before he died markuu uu soo diray wuxuu igu dhahay wiilkaas kugu ogahay warqad deero oo soo diray oo wallaahi oo billaahi warqadiina wali waan hay anigu hooyaday ma rabo inaan maxkamad inta qaado warqada laga akhriyo waliba uu hooyaday ka cabanay oo uu lahaa u dhibaataysay oo ay dhibaataysay oo sida aniga ii cayrisay guriga uga cayrisay oo labadooda aan laba lacagood u diri jiray marxaati baa laga yahay walaalayaal aniga wax badan baan qarinaya yaa la iqasin hal ii ogolaado walaalka inaan arko hal ii ogolaado Soomaali Maxameday bay taagantahay wallahi habar sheekadu way dhaafaysaa habar hebel way dhaafaysaa sheekadu waxay taagantahay yaa Soomaali yaa dhiig lahay bay taagantahay awood baa la igu faanahayaa lacag baa la igu faanahayaa waxa weeye niman reerkan habartan isxigaan oo tuug ah ayaa lacag haysta oo tuug ah
dadkaas dhan bay igu soo direen walaalkii haddii inaan arko waa la ii diiday walaalkii inaan arko aabbahay wuu dhintay aabbahay markuuna uuna before aabbahay father died aabbahay waraaq dheeru iiga tagay hadda aniga dhinaca baabuurkayga u soconaya wiilkaygii baan fiirinayaa oo dadkaan aan ka baqahayaa inay maartay nagu soo weerar nagu soo qaadaan waa dad meesha lacag loo ballan qaado la yidhi dhimashada wiilkaan ayaa lacag la idinku siinhayaa dadkaan waxa ay sugayaan wiilkaas inuu dhinto waxa aan idin sheegahayaa nin la yidhaahdo hebel caddood oo tuug ah oo markii horena habarta koogaadhiyan la ahaa ninkaasaa waxaan dhan ka dambeeya ninkaan dambe oo gabadhii ninkaas ilmaha ka dhadhalo oo gabadha caburinhaya ninkaasna waa in adeerkiisna hebel caddood baa la yidhahaa tuug nimankaan tuugada oo gabadhaan isaga dambeeya halkaan wiilkaan walaalkii keenay waxaan ka codsanayaa Soomaali Maxamed wax allaala wixii TV-gaan arkaa in weerarka nalagu haayo iyo dhibaatada nalagu haayo nalaga soo gaaro waxaana nalaga soo gaaro Soomaali Maxamedey walaalkii waa la caburina hooyaday waxaa tiri adigoo maqlaayo dabciinu iga furo oo aniga wiilkayga iga furo waxay dhahday ha furin albaabka anaa ku xukumahaya gurigana wuu kula qoran yahay wuu la degan yahay oo liiska wuu kula qoran yahay xaquuq ma laha miyaa ninkaan xaquuq buu leeyahay sida qof walba aad ugu doodaysaan Soomaali Maxamedey buu walaalkii Maxamed Hayba goox xaquuq u leeyahay anybody oo TV-gaan arka waxaa rabaa hadda buildingkaanu joogaa hooyadiis buu la joogaa hooyadiis waa yeel waxna ma qorto waxna ma akhrido waraa habartaana waxaa waaye habar waayeel ah waa habar waayeel ah wiilkeeda aniga ma kala qaybinayo caruurteeda wiilkeeda iyo ayada ma kala qaybinayo waxaan doonayaa in la ogolaado inaan labadoodaba arko maxaa yeelay aniga ma kala qaybinayo laakiin waxaa rabaa xaquuqdii aan lahaa in la isiiyo hadda walaalayaalow dadka xaquuqdayda iga hor joogsanahaya wadankooda sidee xor ku noqonaya wadankooda sidee xor ku noqonaya dadka aniga iga hor joogsanahaya walaashay hooyaday walaalkay iga hor joogsanaya oo gaajada u dilahaya oo yuqumada u dilahaya dhibaataynaya lacagtana waa laga qaadanaya bil wal ninka inay hebel caddood baa ka qaadanaya tuugaas wallaahi oo billaahi sheekooyin badan baan ogahay Soomaali Maxamedey waa la isfarfarhayaa waa la isqudqadhayaa qabiil kama xoog badna qof kama xoog badna waxa nimanka weyna xoog hayaan oo weyna dhacahayaan waad arkaysaan waxa way baabuur bay hadda keensadeen iyo waxay keensadeen hub iyo xabado ayay keensadeen waad arkaysaan Mareykan gudahooda waxa lagu sameeynayo waad arkaysaan ninkii dab casar sida xabada loogu qabtay waad arkaysaan dadkaan waxa weeye daarood dadkaan iska isticmaalahayaan waa dad bay dabada ku wataan oo dad walba qof kale dabada ka soo galahaya oo qolo kale ka soo jeeda ayaa dabada ka soo galay oo dal leh waad aragtaa walaalayaalow hadda waxa weeye sheekada way dheerta waxaad arkaysaan baa dhacayo waa ilaa hadda booliiskii baa sugahaya ilaa hadda booliiskii baa sugaya waxa weeye booliiskii baa imanaya hadda waa sugayaa hadda waxa weeye meeshaan baaba la igu soo weerarayaayo qabyaalad hadda waxa weeye anigu walaalkii uun baan doonaya wax kale ma doonayo anigu qabiiladooda ma doonayo tuugta ah waxaan doonaya ma gaangeystirintan maagahooda iyo nimankooda ma doonayo aniga walaalkii inaan arko uun baan doonaya sharciga iga reebaan rabaa inaan ogaado Soomaaliyay sharciga iga reebay inaan walaalkay arko oo walaalkay anigu hooyaday aabbahay dhalaan oo isku dhiignahay oo DNA-da isku mid tahay sharciga ii diida inaan arko gurigaan hooyadaydii la leeyahay waa ku dhashay la leeyahay xukumahayo iyaan arkaa inaan rabo hadda aniga meeshaan taaganahay jidkaan taaganahay guriga dhanba meeshaan dheerad waan uga soo tagay jidkaan hadda taaganahay waxa waa meeshaan nalkeeda waxoogaa mugdi waaye iga raali ahaada aniga halkaanayta ayaan marahayaa waayo waxaan sugahayaa meeshaan leyrkeeda waxoogaa waa mugdi waad aragtaan hareerahayga waad aragtaan ninkii tuuga ahaabaa soo galay oo Jamal Umar hadda soo galay ninkii tuuga ahaabaa dadka loo telefoonooyo hadda waa imanaya waa aragtaa soo galay waa ka damoolku soo galay ninkaas tuuga ah oo hadda gaangeysterka ah ninkaas ayaa soo galay hadda waa ninkaas hadda walaalayaal waxa weeye sheekadu way dheertahay ma garat sheekadu way dheertahay wiilka xagu aaday haya halo aniga hadda wiilkayga raadinaya ma arko meel uu ka baxay ma aqaano halkaas uu taagan yahay wakaas waad aragtaan da waxa weeye asagana telefoonku ku hadlayaa wuu yaaban yahay waxa weeye dadku la yaaban yahay annaga dhan telefoonada ayaan isku ilaalinaynaa waxaan isku ilaalinaynaa in la soo weerar hadda meesha waxaan lagu soo weeraray habarta ayaa loo hiilinayaa hooyadaydiina dhashay baan loo ka hiilinayaa walaalayaal meeshaan arka
hooyadaydiina dhashaan naloo ka hiilinaya maxaa naga hooyadii naloo ka hiilinaya anaga hooyadii wayba na dhashay ma anagaa dilayna ma anagaa dhacayna ma anagaa walaalkay baan rabnaa iyadan xataa inaan aragno waan rabnaa maxaa iyadii qudhaadii isu kaaya diidaysa waxayna nooga horteentay oo nagu tiri dadka raalli kama aha anaga nala shaqaynaya dadkaan anaga satisfied ka dhiganaa oo haddii aan dadkaa wixii ay doonayaan samayn weyno maxaa idhaahdaaye dee waxba kala socon maayaan bay leedahay iya saasay leedahay hadda waxa weeye booliiskii waaba iska maqan yahay hadda waa aan wacaa balba waan ku celin hayaay bal waan ku celin hayaay ii holdoona waan ku celin hayaay waryaahe halo kaalay ii wax kaalay bal booliiskii wac mar labaad wacda booliiska waaba iman waaya hadda dhibaata jirtana imanba maayo booliiskaanu waxaa ari walaalkay baana weligay arkin oo intaasoo 3 bilood ii diid inaan arko ayaa rabaa inaan arko war bal ii wac bal hadda booliiska wacda caawa wacda marka inlaynkan ku jiraa bal ii wac bal hadda waxa weeye speakerka saar ii wacda booliiska ii wac waxay u iman waayeen iyagaa oga iyaguna waqti dheer u qaateen waaba ka tagayaa meesha khatar baan ku nahay waa nala ku soo weerarhayaa waxban badhicin waxa waa dhacay waad aragtaa dad baan hayaa dadkaygaan rabnaa inaan aragno waxa dhacay they're on their way. speakerka igu xad waa imaad arka soo bax booliiska waa imaad iga joog gaari igu soo socdo soo ma arkaysaan iga joog gaari igu soo booliiska aan socdaa walaalayaal hadda waxa weeyaan sheekadan way dheer tahay booliiskii baa yimid wiilka walaalkii baan rabaa inaan arko waxa arkaysaan baa dhacaya in dadkii la kala qaadanayo oo Hey, that. you saved it.